duqa caasimada Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko ayaa kormeer ku tagay saribada caanaha ee casriga ah ee suuqa Gobonimo ee magaalada Hargeysa. Suuqan casriga ah ayaa waxa lagu qalabeeyay qalab casri ah oo lagu kaydiyo caanaha, waxaana iska kaashaday dowladda hoose ee caasimada Hargeysa iyo hay'adda FAO. Agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Hargeysa Khadar Yuusuf Ali iyo agaasimaha ururka Algas ee dowladaha hoose ee Soomaaliland ayaa sheegay in ururka barwaaqa uu ka faa'iideysto saribadan caanaha ah isla markaasina uu ilaaliyo nadaafadda iyo fayadhowrka suuqan. Mudane Jibriil oo ka socday hay'adda FAO ayaa sheegay in suuqan casriga ah ay dhiseen hay'adda FAO oo kaashanaysa iyo dowladda hoose ee caasimada Hargeysa isla markaasina maanta ay furaha ku wareejinayaan duqa caasimada. Xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaana u sheegeen bulshada ku nool caasimada in dhawaan laga hirgelin doono suuqyo kala duwan caasimada. xubno laga fuliyay mashruuc aad iyo aad u qiimo badan runtii waxa weeye waad arkaysaano halkaynu ka soo bilownay iyo buulashi iyo halkaynu marna marxaladda maalinba waxa isbedelaya waa dareemaysaa waad arkaysaa. waxaynu u baahannahay waxaynu taagannahay halkii u dambeysay inaynu talaagada gelino oo inta laynoo sameeyo laynoo dhiso meesha quruxda badan leh aynu talaagad ku xalino caanaheena alxamdulillah weeyaan. waxaan u baahannahay inaynu ilaashano inaanu noqonin kii ugu dambeeyey iyadoo aan aad uga xumahay dhibaatada abaareed oo ah mid saamaynaysa dadkii caanaha iibin jiray. ilaahayna waxaanu uga baryaynaa dadka inuu roob degdega ilaahayna siiyo. dadkana waxaanu leenahay oo aanu leenahay inay dumar u badan yihiin nadaafaddana ilaashada baalkaa marmarka laylaana dad badan baa ku waxyeeloobay marka la qooyo aad isaga ilaaliya caawinayo balkuya waxa ay xooluhu soo baxaan dheeftooda sii jirayna baldiba loo soo eegaadii ay dawladda tahay iyo hay'adaha tahayna ku hadlaya afka haweenka iskaashatada ururka barwaaqo ee suuqa Gobonimo ayaa dowladda hoose iyo hay'adda FAO ku amaanay sida habsaamida leh ee uga qayb qaateen dhismaha suuqan casriga ah. maalintii lagu doortay dalalkeena dhammaan dhaxan baa naga duushay, dumarkii iyo caruurtuna way dabaal degayeen, dawladdaanu ordaynay, farxad baanu la duulay, daalba waan iska weynay. duqa caasimada Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko ayaa bulshada ku nool caasimada Hargeysa oo sheegay in 11 suuq oo casri ah laga dhisi doono magaalada Hargeysa. loogu talagalay in la siiyo dumarka maadaama ay xilli abaar ku soo hagaagtay oo xilligana xilligii ay ugu baahida badnaayeen ay yihiin. insha Allah ta'ala anaguna wixii aanu la kaagaymayno waxaanu dib u dalbanay 8 suuq oo kiisa kamid ah oo caanaha iyo hilibka iyo khudradda abayna la dayactiro iyo kalluunkaba iyo 3 suuq oo ay dayactirayso dawladda hoose 11 suuq insan oo kale loo wanaajiyo ayaanu hay'adda ka codsanay FAO. aysan oo iyaduna soo gelaysa mashruuca caanaha lagu wanaajinayo iyadana inay state suuq oo kale ay dayactirto oo kiisa gudaheedu ay saa ku noqdaan 17 suuq iyadoo gabagabadii halkaasi shahaado lagu guddoonsiiyey maayarka caasimada isla markaasina hadhimo sharafeed loogu sameeyey suuqa Gobonimo.